بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بدن رئيس الوزراء وزيرك أمنك تليها عيدا كحوق دلك الصومالية ذي حلك اللوريجي تليه حلك وريجي تليها بوليسكا دمان وزير الدولة وزارة أرمها وزارة قاشاندقة لبدا قدومية قدي لبدا أقل baarlamaanka federaalka Soomaaliya taliyaasha iyo sareeyaasha marti sharafta kala dhamaantiin qof walba magaciisa maamuuskiisaan ku salaamay salaamullaahi calaykum. mudana ra'iisul wasaare mudanayaal, maanta waxaan joognaa munaasabad qaran oo miisaankeeda iyo qiimaheeda gaarka ah leh. munaasabadaas oo ku suntan xil wareejinta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. munaasabadani waa mid ka turjumaysa bislaanshiyaha hay-adaheena qaranka, guurnimada mu'asasada ciidanka iyo ku dhaqanka nidaamka dowladnimo. marka hore anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda gaashaandhigga waxaan si milga iyo qadarin leh ugu mahadcelinayaa u ammaanayaa taliyihii hore sareeye gaas odawaa yuusuf raage oo xilkiisa gutay xilli adag, xilli dagaal iyo duruufo amni oo culus ay dalka haysteen. hogaamintiisa hoosteeda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay muujiyeen adkaysi iyo nafurid iyagoo argagixisada gaarsiiyay jab adag. dagaaladii u dambeeyay waxay ciidamadeenu si cad u muujiyeen in cadowgu maantay uu ku jiro hoos u dhac iyo kala yaac, awooddiisiina ay sii weeqmayso maalinba maalinka ka dambaysa. argagixisadii marka ay ku faani jirtay awood iyo cabsigelin maantay waa mid difaac ku jirta, meel ay ku nabadgelayaanna aysan jirin oo ubuucdoodii hadda sidii taliyaashu ay ku warrameen loogu tagay jilib iyo saakow iyo buulo fulaayo. hadda intii la sheegay waxaa la gaaray musaskoodii u dambeeyey oo isdhihi jireen waad ku nabadgelaysaa. waa niman u dhaxeeya god iyo qabri. waad aragteen godadka dhaadheer oo ay qoteen iyo qabri hadhow tomaydkooda ay ugu cararaan. waa kuwo dagaalka lagu hayo nimankaasi ma istaagayo sida muuqata. dib u laabashana ma leh. waxaa keliya u furan inay soo dhiibaan oo la cafiyo sida qaarkood ay go-aansadeen, ama inay la'daan sida qaar kale ku dhacday, ama ay duurka sidii dugaagii ku aradaysnaadaan. ma jirto sabab ku qasbaysa taasna. shalay markii diyaaradaha Turkigu ay kaceen F-16 oo ciidanka xoogga dalka loo keenay yaa murti igu soo degtay, igu soo maaxad. dadka gabyana ma yihi, gabaygana ma xasuusto inta badan. waxaan idhi F-16 fariin ay wadaan idinka gaadhsiine waa nimankii khawaarijta ahaa. madaafiicdeedu meeshuu tagaan idin tusaaleyne. fasahaadka aada wadaan iyo falfalxumadiinna, fartii aada nuuxisaan iyo fadalladiinniiba waxa maanta idin sugahayaa waa dabargo-iniye u geegsada sawaariikhda iyo gugaca baaruudda, kana goosta mudankiina iyo meydad farabeelay. intaasi waa burtideydii oo hadda dadka gabyaan kusoo biiraya. ugu dambeyn, munaasabadan qiimaha badan waxay fariin adag u diraysaa gudaha iyo dibadda in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay leedahay ciidan qaran oo awood leh. waa tii awooddiisa halkaa lagu muujiyey. wasaaradda gaashaandhigga oo jihaynaysa
talis midaysan oo fulinaya iyo hoggaan qaran oo aan marnaba ka leexan doonin difaaca midnimada madax bannaanida iyo karaamada dalka. waxaan mar kale u mahad celinayaa saaxiibada la sheegay halkan ee caalamka ee ciidankeena garab istaagay oo runtii la'aantood wax badan oo qabsoomay aysan qabsoomi lahayn. taliyahooda waa ayaa meeshaan ka tiriyay, dhammaantood waa ku mahadsan yihiin. waxaan ugu dambeyn rabaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya fariintaan u diray ay tahay war cadowgii waa jabay, waa dabayshaday. taliyaha cusub iyo isbeddelkan shaqadii socotay waxba aysan ka bedelin. waa in horay loogu socdaa, dhiig cusub la qaataa. cadowgu waa sii wiiqbay runtii intaan ognahay. maalin dhaweytaan sheegnay inay qabsan waayeen bisha Rajab oo sanad walba ay shiraan. sanadkan sanadka kaliya oo aysan shirin 18 sano la soo dhaafay inay tahay. taasna waxaa keenay in meelihii ubucdooda lagu tagayo. marka runtii guushaas weyn baa lagu fadhiyaa, kasoo noqosho ma leh. inta la sheegay wasaaradda gaashaandhiggu waxay runtii ku mashquulsan tahay inay ciidanka kabto. arrinta hadda taliyaha ciidanka xoogga dalka cusub uu ka warramay oo ahayd agoonta iyo arrintaas, hay-ad gaar ah ayaa la wadaa oo madaxweynuhu faray oo hadda wasaaradda cadaaladda xeerkeedii uu yaallo. waxaan rajaynaynaa in culays badani uu ka dego ciidankeenna oo shuhadada iyo dadka naafoobay iyo dadka howlgabkaaba xuquuqdii hadda taliya indha qarsho uu ka hadlayay. dalku batrool buu yeeshay markaani yeelanayaa insha allahu in xuquuqdoodii oo dhan halkaas ay ooli doonto haddii ilaa yiraahdo. waxaan ku mashquulsannahay sidoo kale in warshaddii lala kiciyo oo taliyuhu sheegay odawaa wasaaradda maaliyadduna warshaddii dharka tolmada ciidanka qalabka sida. waxaan ku guda jirnaa oo dhexda uga jirnaa in jaamacaddii difaaca qaranka oo akadeemooyinkii kala duwanaa leh in iyadana aan yeegleelno sanadkan intaan ku jirno haddii ilaaha yiraahdo. shaqooyinkaasoo dhami waa shaqooyin aan iska bahaysan doonno. waxaan taliyaha cusub ku soo dhaweynaynaa wasaaradda waa ka tirsan yahay, taliska ciidanka nin kusoo dhex barbaaray weeye, nin aqoon-yahan oo shiikha weeye sida hadda ka maqlayseen. ciidanka in lagu hogaamiyo diinta, ciidanku inay noqdaan kuwa allahooda ku xiran, kuwa diintooda ka turjuma, kuwa wax allaaliya wixii maaragtay diinteennu diidantahoo dhan ka fog, kuwa xuquuqda dadka iyo badqabka ummadeenna iyo karaamadooda ilaalinaya. waxaan ugu dambeyn rabaa inaan u mahad celiyo mudane ra-iisul wasaare taliyihii hore anigoo si buuxda u garab istaagaya una taageersan taliyaha cusub una rajaynaya guul adkaysi in alla ku asturo hawsha qaran ee culus. guulaysta. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.